shirka amniga galmudug ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka galmudug sida warkan uu nagu soo diray wariyaheena telefishinka Somali Cable ee galmudug kadib 3 maalin oo socday shirka amniga galmudug kaasi oo lagu lafagurayay sidii loo xareyn lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxaana ka soo qayb galay xubno ka socda qaramada midoobay safaarada Mareykanka iyo Turkiga sidoo kale waxa ka qayb galay agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya qaar ka mid ah golaha wasiirada galmudug madaxa xukuumadda galmudug oo soo xiray shirka ayaa ka hadlay waxyaabihii looga hadlay sidoo kalena waxa uu sheegay in deegaanada galmudug ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee laga xoreeyo ururka al-shabaab garab istaagaya dhiiri gelinayaana inay u istaagaan ilaaliyaan amniga shacabka galmudug ay dhowraan dadka liita oo gacanta shabaabka hoostooda jooga si ay xornimo u gaaraan amni u gaaraan nolol u gaaraan nabad u gaaraan waxaan leenahay marka dawladda federaalka waa u mahad celinaynaa sida ay noo shariftay oo gogashan sharafta badan ee maamulka galmudug fidiyay ay uga soo qayb galeen beesha caalamka qaybahooda kala gadisan waa u mahad celinaynaa ayakana sida dhiirigelinta mudan oo aad iyo aad ay noo dhiirigeliyeen ka maamul ahaan ayna u ballan qaadeen inay garabkeena istaagayaan oo dhan walbaba ay naga gacan siinayaan waa soo dhawaynaynaa aqbalaadooda anigoo ku matalahaya madaxdii iga sareysay madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo dhammaan anoo galmudug ku matalahaya codka aan ku hadlahayo yaan soo dhawaynaynaa dawladda federaalka wafdiga nagala jooga iyo beesha caalamka wafdiga nagala jooga waxaana leenahay aan isgarba qabsanno si cadowgeenu dhexdoona uga baxo oo Soomaaliya oo dham ay xor u noqoto takaatuf isgarba qabsasho iyo tamaasub isku dhaganaansho aan isku dhaganahay oo dhexdeenu aysan duleelin taas inaan ku dadaalno waa muhiim shirkan ujeedadiisu waxa weeye in amniga galmudug la adkeeyo inta xorta ah inta gacanta shabaabka ku jirtana gacantooda laga bixiyo hadafkiisu waxa weeye galmudug oo nabad noqota galmudug oo mid noqota waa midowday midnimada sidii loo adkay lahaa cidii kala furfuraysa oo fadqalala ku haydana la waani lahaa hadaysan waan soomayna warnadaa loo dhihi lahaa marka insha Allahul Kariim waxaan rabnaa hadii Allah idmo inaan galmudug xoreyna muddo kooban maamulada shabaabka dhibka badan oo ku hayana aan gacan siino baan rabnaa dhamaanteen waxaan noo ballama tamaasugu waxa waaye isqabsasho iyo isku dhaganaansho aan isku dhagana inaan garbaha isku hayno meel duleelona la ka soo gala aanan la ka helinin cadowgeena aanu midowno Soomaaliya midnimadeeda aan ku dadaalno 20ka يعني 2020 si ay u gaarto in shacabku inta soo baxo meel walba u soo baxo nabadgelyo ayadoo ah qof walba hiba codkiisa u dhiibto oo yiraahdo hebelaan raalli ka ah oo aan rabaa inuu u hogaamiyo si codkaas loo gaaro 20ka ka hor waxaan rabnaa annaka ya shabaab inaan ku kala baxno Soomaaliya shirka kadib wafdiga ka socday qaramada midoobay ayaa indhayn ku sameeyay qaar ka mid ah xariyaha ku yaala magaalada Dhuusamareeb عبد الكريم حاشي عبدي Somali Cable TV Dhuusamareeb